celinaya dadkii ka soo shaqeeyay sida la iskugu imaaday maanta ama bani aadamku way isqoomaan had iyo jeerbe Soomaali waxay tiraahdaa carabka iyo ilkaha yaa wax iskaga dhowba aan lahayn wayna isqoomaan marmar baa waxaad arkay carabkii ilkaha ay qaninayeen hadii la isqoomo laakiin isku soo noqodka waa sharaf aad u weyn badan taa waan igu mahad celinaynaa midda kale niman yahow maanta khilaafaadka dhacayo culimadu khilaafku saddex qaybood bay u qaybiyaan khilaaf la yiraahdo al khilaaf al mu'tabar iyo khilaaf la yiraahdo khilaaf la faa'idata fiih iyo khilaaf la yiraahdo al khilaaf daalla saddexdaas ay u qaybiyaan khilaaf al mu'tabar waxa la dhahaa khilaafka a'immada masaa'isha ay isku khilaafaan waa min baabil ijtihaad khilaafka la faa'idata fiih waxa قال الله يرى أصحاب الكهف في سورة الكهف الله كشجع سبحانه وتعالى أمسي أهين ما تدار لهنو وحد كسي ما كرملها خلاف كلا وحاوية وخلاف الضالة ومتك الصومالي ذهريو وخلاف بعد إنما كل سعران مال الله يستنى أنا لحين بقى خلاف كمان تدعى الأركيسين لبعض الروح وإسهيستان وخلاف بعده كهل لقى تنزله مدة كلا waxaan leeyahay dadka shicibka ama dadka kale madaxda war laba ruux oo walaalihiin haday iskhilaafaan ama laba qolo haday iskhilaafaan dhaxdooda yaa laga faa'iideysan wanaaga waxa weey labada iskhilaafeen in isku soo celiyo oo la isku soo dabaalo laakiin dhaxdooda hadaad ka faa'iideysato adigana dambiilaan noqoni midda kale waxaan leeyahay dadka madaxda ee gabanaha uu weyn yahay meesha fadhiyaan war mas'uuliyad baa ilaahay idan saaray isku tanazule shicibkiina u shaqeeya dadkii mas'uul aad oga noqoteen u shaqeeya oo orda oo meelaha gala sababka waxa weeye hadaad iskhilaaftiin maslaxa fara badan baa dhumi oo la qaban lahaa maslaxadaas fa ay u dhumin isku duubnaada sanataha iyo gavanaha iyo dhibidka iyo ra'iisul baarlamaanka war isku duubnaada hadaad isku duubnaatiin wax walbaba wuu idin hagaagi waxaad ogaatiin niman yahow waxaan la hadlay madaxdiina war magaalada marmar dhax wareego lugeeya dhowra sida dadka wax uu helo hatta biyaha fiiriya waxa laga yaabaa waxyaalooyin fara badan oo iidan ogeyn inuu idin soo baxa war wala shaqeeya waxaan leeyahay dadka shicibka sida sheekha uu sheegay war miidiyaha faraha badan ee beenta ee la qoray ilaahay wuu nilagu xisaabtamiyo ogaada war miidiyaha khayr u adeegsada war telefoonyaha khayr ku qora war masaa'il ninka hayaha ku qoro war dadka waanadiisa laga sheega laakiin fidmada dalmaysa ee meel alla meeshaad furtaba caawa balaayo u soo gelayso hal iska ilaaliyo taa waxa weeyo ilaahay dambi buu ku ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wax alla waxaad ku hadashaba malag baa qori hamoodin waxa carabka laga hadlayo kali hatta qoraalka aad qoraysa ee beenta uu soo gali halis ilaaliyo dadkeena madaxda aan ka daayina dicaayada iyo waxyaalooyinka fara badan aan ka ilaalino waxa munaasabo diinteena ay qori inaan u duceynaba sababka waxa weeye ayaka inta u duceyna ay wanaagsanaadaan shicibkana uu wanaagsanaan ayaka laakiin haday halaabaan intaad habaarto oo aad balaayeyso oo fidna aad ku sii daysa wax alla wixii masaalix ana way dhumi kolka aan is ilaalino raabahay reesama wadalo boqolkiiba boqol waad mahadsantiin khayr allah idan siiyo wali lama arkin waxyaalooyin fara badan oo aad qorqorteen lama hayo hatta khilaaf oo soo aha ma ogi waxaan ka warhayno oo quman ma jiro waa la xakameeyay maantana hadaabad isku keenteen labada duqay allah idan barakeeyo subhanahu wa ta'ala خير بانا إنو أغنهاي أنيقو وليبا كو هاللايا أفكي عدن ولاليهين الله نهايدا بركايو وحان إذن ليهي أن إسئلالينو من نماذا هل حوجيو غارسا كاونتي من نماذا هكو دلاشو من نماذا نين الله نكي من نماذا كهر إما سنة هلا قبطو